maanta telefoonkaas si aan ku helaba waan ku helay si aan idinla hadlana intaana ilaahay saacadeeda dhammayn ayaan jeclaystay inaan runni sheego war dalkani uu burburay diin ma haysto caafimaad ma haysto tacliin ma haysto dadku waxay ku nool yihiin darxumo daranyo cadaalad darro dulmi wax walba lagu nool yahay anu waa runtan waan sheegay anuu xabsiga ku jira weliba runtan niisi sheegay ilaahay baa wax dilay kaalayoona dila ilaahay baa wax dilay haddaad wax dishiin kaalayo halkaa igu dhex imaado ani dila ereyadani waxay qayb ka ahaayeen muuqaal oo xabsiga ka soo dhex duubay duuliye Fuaad Yuusuf Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada cirka waddanka Djibouti kaasoo muddo 2 bilood ku xidhan xabsi ku yaala gudaha magaalada Djibouti waxaana uu ka deeriyay xaaladiisa caafimaad iyo weliba cadaalad darro uu tirsanayo kadib markii muuqaalkaasi uu soo baxay waxa dhacay banaanbaxyo lagu dalbanayo in cadaalad uu helo duuliye Fuaad Yuusuf Cali kuwaasoo ka dhacay magaalada Djibouti shalay iyo maanta dadka mudaharaadayay oo ay maanta u qorshaysneed inay isugu yimaadaan garoonka kubadda cagta ee Guuleed ayaanay u suurtagelin kadib markii xukuumaddu halkaasi ay dhoobtay ciidan taas beddelkeedana dadweynaha banaanbaxayay ayaa waxay go'aansadeen in xaafadaha magaalada ay isugu soo baxaan si gooni ah Samira Jaamac Cabdi waa xaaska duuliyaha xidhan ee cadaalad darrada tirsanaya iyadoo ku sugan gudaha magaalada Djibouti ayay ugu warantay khadka telefoonka ugu horreeyna waxaan weydiiyay bal xaaladda uu ku sugan yahay saygeedu ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto aad baan horta u salaamaya aad baan u hambalyeynaya sida quruxda badan leh walaalkooda ugu wada kaceen taa ka bacdi walaalo haddaan arrinka Fuaad aan kaaga warramo Fuaad wuxuu ahaa nin ciidanka Djibouti ka tirsan buu ahaa nin walaal wuxuu ahaa baylod buu ahaa Fuaad nin tacliintiisa u buuxdu ahaa walaalo wuxuu ku maxil buu ka hayay ciidamada Djibouti maxil buu ka hayay yani maxil buu ka hayay xil buu ku hayay nin labaalaab ahaa sarkaal sare ahaa sarkaaladu ka tirsanaa sarkaalada ka tirsankeegana waxa uu dheeraad nin baylad ahaa bayladkana noloshu ku nool yahay caalamka waa laga yaqaanaa marka dhibtan uu tirsaday ee keentay inuu waddanka ka baxo markii hore maxay ahayd dhibtu tirsaday walaalo inuu dalka kaga tagana uu maanta nolosha ku sugnaadana keentay waxa weeyaan ninka haysta xiradooda oo si cadaalad darro u la dhaqmayay oo bayloodnimadii ka joojiyay oo mushaharkiisu qaadanay dhididkiisii ka xidhay lacagtii Samira dadku waxay isweydiin karaan 2 bilood ka hor waxa la daawaday muuqaal Fuaad oo diyaarad gudaheed muuqaal ka soo duubay oo ku dhawaaqaya in uu goostay oo waddanka uu ka baxayo maalinta aniga ayaa walaal dadka ka shaka bixinaya kana waramaya maalin Jimcaha bay ahayd bisha 27 bay ahayd 9kii subaxnimo shaqo tagayay habeenkaas oo dhan gaar buu haynayay dhulku uu kala xidhnaa oo magaalada xanuunkan ina soo galay ba kala xidhay ahayd gaadhiyaal may shaqaynayn basas may shaqaynayn Fuaad horta shakhsiyan gaadhi ma wato basku iska raaca asagoo nin baylooda waxaan ku ruuxu la hadlay xeradii markuu la hadlay ku yiri maanta shaqada maadaama aan u leeyahay gaadhi aan soo raacan ma jirtee gaadhi halay soo diro sheefkii xeradu wuxuu ugu soo jawaabay gaadhi lama soo dirayo soo luge maalinta diyaaradda arrinkeega dadka uga sheekaynaya Fuaad wuxuu ka lugayay Beekaadus meel la yiraahdo aan deganahay ilaayo wuxuu u lugayay airportkii hadduu ilaa halka u lugayay waxa loo kala socdaa 2 saacadood marka bas la fuushan yahay marka la lugaynayana waa qiyaasteeda waa la garan karayaa xeradii walaalo Fuaad wuxuu galay isagoo xoog u cadhoonaya oo xoog u dididsan markuu xeradii galay wuxuu ku uri ninkii sheefkii maxaad gaadhiga aad igu soo diri weyday uu karayay Fuaad inuu maalintii iska seexdo aqalkiisa laakiin hadduu seexdo uu xukumayaa xarig buu xukumayaa taabu ka cararayay maadaama aabbato dabciyaa la yahay waxaan ku uu socday xeradii markuu galay buu uri maxaa galay igu soo diri waayay gaadhi cadhadii Fuaad maalintii diyaaradda dhex koray diyaaradda hadduu Fuaad koray videoga uu iskaga duubay ee diyaarad uu Fuaad la baxsaday iyo diyaarad uu kaxaysay midna toona ma jirto waa wax lagu ceebaynayo lagu cambaaraynayana naftiisa quru la baxsaday Fuaad marka
ma wuxuu tirsanayay oo keliya in gaari loo soo diri waayey mise dhibaatooyin kale ayaa jiray Samiiray? dhibaatooyin kale jira walaal, gaari oo qura sheekadu ma ahayn. dhibaatooyinka jirta waxa kamid ah baan ku iri bayloodnimadii buu sanad ka hor laga joojiyay, mushaharkiisina waa laga xidhay. dhibaatooyin fara badan baa meesha jirtay. haye marka cadaalad darrana waa loola dhaqmayay mar kasta. marka diyaaradan muu kaxaysan ee muuqaalkunbuu ku duubay miyaa? haa, muu kaxaysan diyaaradda, muuqaalku ku dhex duubay bes. muu kaxaysan diyaarad. xaguu u baxsaday markaa kadib? adigu markii uu ku arkay ninkii xeradooda hayse markuu ku dhex arkay Fuaad oo diyaaradii korsan, ayuu u dalbaday ciidankii dalka, sirdoonka, booliska, jaandaaranka, armeega, cid kasta u dalbaday. markuu dadkii u dalbaday ayuu Fuaadna intuu qaado diyaaradii kasoo dhaadhacay, ayuu albaabkii xerada ee halka dambe ayaa ciidankii meesha ka shaqeynay ka fureen. albaabkiina wuuna ka baxsaday, sidii wuuna ku baxsaday Itoobiya ku galay. Itoobiya markuu tagay kadib yaa soo qabtay markaa, maxaa dib u soo celiyay? Itoobiya markuu Fuaad Addis Ababa u galay, Fuaad wuxuu samaystay warqad magangeliye ah oo dalka Itoobiya dhexdeeda uu ku noolaan karo ayuu samaystay. waana loo ogolaaday haddii loo ogolaadayna qolada sirdoonka ee Itoobiya iyo sirdoonkii Djibouti ayaa heshiiyey, soona dhiibay 3 habeenimana inta gabigiisaba la soo wada xiray oo passport fooyo loo sameeyay ayaa airportka Addis Ababa laga soo kaxaystay diyaaradda Djibouti leedahay oo lagu keenay Djibouti. hadda wax maxkamada ma la geeyay intii uu ku sugnaa xabsiga ku yaala wadanka Djibouti? inta uu maxay yahay xabsiga gabood ku sugan yahay, waxaan ku iri habeen bay geeyeen, hal habeen bay habeenimo waliba geeyeen. cadaalad meesha ma jirto. qof habeen maxkamad la saaray halkee lagu arkay? habeenkii markii maxkamadii la saarayna uu diiday inuu hadlo. wuxuu yidhi anu avokaa baan leeyahay, avokaagayga aniga hala keeno. sidii baana garyaqaan baad ujeedaa? ninkan dee kala qaada dee dacwadda qofka dee u dacwiya. sax. maxaa tidaahdin inigu? qareen waa kaa. markaas sidii buu ku diiday in dacwad laga qoro, sidii baa lagu celiyay halkaas. imika shalay toole maaha, doraad khamiistii, doraad toolaha khamiistii maaha, arbacadii afhayeenkiisii waxaa lasoo siiyey warqad maxkamadda in lagu hor keenaya. shalay toole ani afhayeenkiiba maxkamadii baan tagnay, maxkamadii Djibouti baan joognay. waxaan ku iri raggii justiiska iyo dacwadda qaadayay waxay idhaahdeen lama keenin shalay maxkamadii, sidii bay u keeni waayeen. avokaagii aniguna halkii baan kaga soo noqonay maxkamadda. dhibaatooyin kale oo laydinku hayaa ma jira marka laga tago in uu ninkaagii xidhan yahay oo xaaladiisuna ay xun tahay sida aad sheegtay? dhibaatooyin badan waana lagu hayaa, habeen iyo dharaan anaga sidaabana loo dul joogaa, khaatiyaan baan joognaa. imika xalay toole inan yaroon dhalay oo aqalka hortiisa taagan ayay askartu intay u timday si xun oo cadaalad darraa u dishay. inantii yareed aqalka ii dhex jiiftaa imika. tu kalena shalay casarkii baa layga qaado oo layga xidhay. oo aad dhashay? oo aan dhalay. sabab maa loo xidhay? banaankay taagneed baa lagu xidho laga qaaday. ciyaalkii baa laleeyahay ha eegina dibadii, ha istaagina. Samiira, waxaa kale oo shalay ka dhacay magaalada banaanbaxyo lagu taageerayo oo lagu dalbanayo in ninkaaga la soo daayo. maantana qaar baa qorshaysan ayaa lay sheegay salaada duhur kadib ama salaada duhur kadib. waa runta xagga ka waran? wallahi mudaharaadyadu ilaa shalay xoog ba u socdaan. shicibka reer Djibouti maasha Allah baan leeyahay, xoog ba u sare kacsan yihiin, cadaalad xaqayna doonayaan. maanta waad arkaysiin deeqo maanta iyadna dareyskii dhigtay waa daawateen baan u malaynayaa. waxaan ciidanka dhammaana ka sugayaa sidaa iyo si lamida, waayo ciidanku maanta cadaalad kuma noolo. horta cadaalad darra Djibouti dhex taala. deeqi waa tuma dadka aan garanayn. deeqi waxa weeyaan walaalinayn yaroo fanaanada oo jantaalo markii la sameeyay ku soo baxday. deeqa geed baa la yidhaahdaa. maasha Allah saaka dareyskii way dhigtay. dhinaca dawladda, wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu sheegay in dadka ku baaqaya rabshadaha iyo kacdoonku ay ku jiraan dembi,
isla markaasna ay suurtagal tahay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado waxaana uu intaasi ku daray in xukuumaddu mas'uul ka tahay kala dambaynta sidaas daraaddeed qof kasta lagula xisaabtamayo wixii uu geysto isla qoraal kale oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu ku sheegay in maxbuuska xidhan uu caban karo hawshaasna uu gacanta ku hayo qareenkiisa oo kala shaqaynaya waaxda garsoorka oo qiimeynaysa xaaladdan Djibouti waa waddan yar oo ku yaala goob istaraatiiji ah isla markaasna muddo dheer haystay nabad inkastoo mucaaradku ay ka cawdaan in lagu hayo cadaadis iyo in aanay haysan xorriyad dhinaca siyaasad ahaan Djibouti waxa ka dhacda doorashooyin ay dadweynuhu dareeraan laakiin mucaaradku waxay sheegeen in doorashooyinkaasi aanay u dhicin hab xor iyo xalaal ah madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka talinayay waddanka Djibouti ilaa sanadkii 1999 welina isaga ayaa madaxweyne ka wixii wararaya ka soo kordhay xaaladda Djibouti waxaad kala socon doontaan telefishinka Home Cable Xasan Galayd wararka Home Cable Hargeysa